inkastoo dhammaan jirka dumarka soo wada jiidasho uu leeyahay haddana marka la fiiriyo naasaha waxay ku yeeleen goob istiraatiiji ah oo raggu indhahoodu ay soo qabtaan gabdhuhuna waxay ka qaadaan xubintaas kalsooni aad u weyn maanta waxaan dhidinaynaa xaqiiqooyin ku saabsan muhiimadday u leeyihiin ragga naasaha iyo dumarka quruxdooda marka la fiiriyo xubinta dumarka maanta aan ka sheekeynayno ee naasaha ah labada naasood kan bidix mar walba wuxuu ka wen yahay kan midig marka la fiiriyana xilliga caanahana mar walba kan bidixda ayaa ka caano badan kan midig halkan waa janalka Rafiiq Almacruuf loo yaqaano rejistiinka ama rajabeetada dumarku ay ku xirtaan naasaha waxay soo baxday dhammaadkii qarnigii 19aad iyo bilowga qarnigii 20aad waxaana rejistiinkii ugu horreeyay la soo saaray 1948 waxaana hindisay Philip Milgir waxaana lagu daawacay majalladii Red Book yaraan halkii naasba waxaa laga helaa 15 ilaa 20 oo unugyada caanaha keena ah taas oo suuragal ka dhigayso in caanaha ay soo buuxsamaan sidii unugu jiido cilmi baarayaashu waxay sheegeen ilaa 7 calaamadood oo dhaxalka naasaha uu ka soo muuqanayo xagga dumarka 5 ilaa 4% bacdiinta ku jirta jirka dumarka waxay ku jirtaa naasaha marka la fiiriyo culayska naasaha oo u dhigma jirka dumarka waa 1% mar walba oo gabadhu ay weynaatana naasaha way isbedelayaan xajmigooda sidoo kale isbedelka waxaa keeni karo xilliga uurka ama dhalmada ama nuujinta ay ku jirto kale cajiibka ee isbedelka dhanka naasaha ka qayb qaadan karto waxaa ka mid ah xilliga jiifka haddii aad u jiifato af waxaa laga yaabaa inuu isbedelo shakliga naasaha ilaasho qaabka wanaagsan ee naasaha una seexo dhawr haddii gabadha ay u seexato noocan waxaa laga yaabaa inay dhacdo cadaadis dhanka naasaha ah waayo culayska dhan waxay korayaan xabadkan waxaa ku yaala naasaha in muddo haddii ay sidan sii ahaato waxaa laga yaabaa in naasuhu ay ka haddii aad tahay ama aad taqaanid qof u seexda xabad kula tali in ay xirato xilliga jiifka rejistiinka wuxuuna ka caawin doonaa inuu u ilaaliyo kala didida naasaha haween badan oo ku qanacsanan habka Ilaahay ugu sameeyay naasooda ee qaarkood waxay isku dayaan in loo sameeyo qaliin ka oo lagu qurxinayo naasooda halka qaarna ay dalbadaan in loo weyneeyo qaarna ay dalbadaan si ay loogu qurxiyo habkan oo qaliinka ayaa wuxuu yahay mid aad iyo aad dunida ugu soo badanayo qarnigan 22aad ayaan ku jirno 24 November 1895 waxaa dhacay camaliyadii ugu horreysay ee taariikhda taasoo la sameeyay gabadh heesaa Jarmal ahayd iyadoo loo qurxiyay loona weyneeyay naaska midig qaliinada lagu qurxinayo naasaha kaalinta koowaad Mareykanka ayaa galay naagta ugu naasaha weyn ee dunida waxay u dhalatay Ruushka waxayna ku nooshahay Mareykanka Hani Tillerson ayaa lagu magacaabaa iyadoo xajmiga naasaheeda uu leeyahay u waaweyn yihiin sida muuqaalka aad ka dheehanayso Schlershan waxay ku jirtaa gabdhaha ugu naasaha weyn ee abuurtay naasaha waxay u dhalatay Mareykanka waxaana loogu soo sameeyay Brazil maadada silicoonka ayaa naasaha lagu weyneeyaa Mareykankana waa ka mamnuuc sida daraasad lagu sheegay 20% ragga dumarka markay ay la kulmayaan waxay ka fiiriyaan wajiga halka nisbada soo hartay ee 80% ay ka fiiriyaan xabadka ama naasaha naasu waxay ka qayb qaataan quruxda dumarka xitaa markay ay aalamiiteynayaan waxay muhiimad siiyaan xabadkooda ama naasaha 70% gabdhaha qaarkood ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay ka xun yihiin habka iyo nidaamka ugu samaysan naasooda qaar ayaa waxay ka cawdaan inuu aad ugu yaryar halka qaarna weynaan zaid ay ka cawdaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena maanta haddii fikir dheeri aad hayso waad noo soo gudbin karaysaa